وقولوا في الميدان إنه كسر إذا فلانه سووا سووا بس عين إذا كان يقول أنا ciidamada BSF oo qayb libaax leh ka qaadanaya gurmadka lagu samata bixinayo dadka ay saameysay abaarta ka jirta deegaanada Puntland ayaa maanta ugu deeqay taakulo isugu jirta daawo biyo iyo caano dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolka Cayn oo maalmihii u dambeeyay la ildarnaa xanuuno iyo abaar baaxad leh oo sababay oon iyo cunto la'aan agaasimaha gobolka Nugaal ee ciidamada BSF Puntland gaashaanle sare Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ku wareejiyay deeqdan مسؤولين isugu jirta xildhibaano wasiiro iyo maamulka gobolka Cayn waana deeq laga soo jaray mushaarka ciidamada BSF ee Puntland dadka walaalahooda oo dhibaataysan oo laga soo sheegayo dhimashada abaartu hayso وهذا حنون كودر مضي وعايز يقول شيء وعانه ودودي والنفقة له وفلبوين يوحول بله أي نوعه وبيه والله قلت لك لي بيه نظيف كاي ودور بقول كرتونة أنت أصلاً قلت لك لي اللي جالسيو قبل كاس عين تذكروا على السن اللي بنا أيام كورة جني يجون وانا يقدوا من جارهان وحنا الله المضي اللي جيو دباتو كشرت الديجان كفرشنا حلبانو نسقوا أفكارتين ووضعنا قرمت كهدي له إنه أنت تبرت إياه deegaano badan baanu ka soo shaqeynay oo aan wax geynay gobolka bari Nugaal Mudug Sanaag meel badan baan geynay kana saaxan mayno dadka aan u dhimanayno qofkii ku dhintaba ku marka waxaan sheegaynaa dadkayga waa u dadaalaynaa waana hadii ilaahay idinka idmo waxaan qaban karnaa waa qabanaynaa waana wadaynaa dadaalka joojin mayno إله ما هذا إله هالك سوق كأني وأكون مهتسين معاونة أي إذا كبيسف وكيكو عوين ما له أقول لي تهتا يعني دجانا ذا بطلان أو وكسر عذر كتير عذر كشوب بيوت كأوها قابل كعين إلى دلانت يو هذا الكيبا حيكون كان إذا كبيسف أقول مثلا يجو قصة شري مشاهر كذا ينفتو ذا وأنا أقول من دجانا ذا كانوا كتير سنبطلان وواحد لو فرحوي وأنا أقول ما هنقلنا يجو قعنا ودك كنت دفاعية قعنا إني مشاركة قادنيا كجتران يعني أي مشاركة قادنيا وأيكون عويان شعب كذا وواحد إله لو ما نقه ويجنا هذه أيضا وأماننا مدح يس سلاكين يعيدنا هامبا عيدنا بقى وعيد كلي أنفلا يو عيدنا قعن كجيستي دباتوي كشرا يعني دجانا ذينا بوتلان marka aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa waxayna ka kooban tahay 60 kartoon oo isugu jira daawo iyo nafaqada dhallaanka iyo hooyada dhallaanka waxa ku jira iyana caano iyana lagu talagalay dadka maatada ah ee hooyada iyo dhallaanka biyo la cabiyo nadiifta ah iyana ilaa 300 oo kartoon ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa in ay si ahayd ay u gaadho gobolka meelaha ugu daran ee xanuun ka jiro oo gobolka Cayn waxaanu hadda ku wareejinaa gudoomiyaha iyo xildhibaanada ka soo jeeda gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka iyo xildhibaanada xubnaha golaha xukuumadda ee baarlamaanka ka soo jeeda gobolka Cayn halkan waxaan ku gudoonay daawo biyo iyo caano iyo nafaqo kale oo loogu talagalay dadka nafaqada daran ee xanuunku hayo ee gobolka Cayn ku dhimanaya arinta waan uga mahad celinaynaa ciidanka iyo wasiirka iyo agaasimaha iyo cidii ka soo shaqeysayba arinta iska soo goysay iyaguna mushaharkooda ka soo gooyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta ciidan wax keena oo mushaharkiisa wax ka gooya oo wax keena waa ciidankii ugu horeeyay waana u mahadnaqaynaa waxaan arki jirnay ciidan wax doona laakiin ciidan wax keena ma aan arki jirin idinkuna waxaad gasheen nambarkii koobaad taa ogaada aadna waad ugu mahadsantiin talabaad
daawadaad noo keentay waa ku mahadsantihiin annaguna waxaanu ballan qaadnay inaanu dadkii gaadhsiino waxaanuna u garannay magaalada la yidhahdo Farjanno oo ka tirsan gobolka Cayn oo aad loogu baahisan yahay oo dhibaato badan ay ka dhacday oo dad badan ay ku dhintay oo hadda ay marayso kaligeed marka deegaanka kale laga soo koobo dhowr iyo 10 qof dhimashadu ay marayso dadka yaalaana hadda ay jiifaan ay marayaan ilaa 180 qof oo buka iyo dad badan oo ku soo barakacay oo xoolaha ay ka dhamaadeen ay joogaan maanta iyadaan u garannay xubnihii xildhibaanada iyo gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka waa joognaa waxa la yiraahdo dadkana waxaan u sheegaynaa annagu inaanu wax u qaybinano marba meeshii daran ee liidata ee jilicsan inaanu ku horraysiinano wixii kale ee yimaade ee gacantayada soo gala ama xagga dawladda ka yimaada ama xagga shacabka ka yimaada ama cid kaleba xaggeeda ka yimaade inaan u soo gudbin doono waxaan kale u sheegayaa dadka maamulka gobolka ka shaqeeya ee barasaabka iyo isduwaha caafimaadka inay dadka wax u qaybiyaan la xisaabtamaan annana waa ka dambaynaa oo la xisaabtamanaa waxa la yiraahdo cabashooyinka la sheegayana inay biyaan aad iyo aad Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran